السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan kusoo gudbinayaa cashir yar oo kooban oo ku saabsan sida MS Excel lagu sameeyo data analysis. Marka waxaan tusaale u soo qaadanayaa tababar la sameeyay oo loo sameeyay 25 qof oo ka qayb galayaal ah kadibna la weydiiyay 10 su'aal oo ah satisfaction survey questions oo noocan oo kale waa taqaanaa su'aalaha noocan oo kale la weydiiyo ka qaybgalayaasha kadib markuu tababarka dhamaado 10 ka su'aal ayaa la weydiinayaa kadib waxaa la ogaanayaa in muxuu ahaa tababarkaas uu hergelay hadafkii laga lahaa iyo ujeedkii laga lahaa iyo waxyaabihii ay ka filayeen dadka ka qaybgalayaasha in la gaaray iyo in kale lagu ogaanayo. Marka kadib waxaa la sameynayaa report waa taqaanaan training report la qoraa markii tababarada la sameeyo. Reportkaas ayaa waxa gadaal looga dejiyaa xogtii ka soo baxday qoraalada noocan oo kale ay sameeyeen dadka survey ilmaha dadka laga qaaday ka qaybgalayaasha laga qaaday xogtii ka soo baxday oo la falanqeeyay analysis lagu sameeyay ayaa gadaal looga rakibaa. waxaa markaas la rakibaa wax u eg noocan oo kale haddaan tusaale u soo qaato waa kan oo kala report gadaal looga rakibaa waxa weeyaan satisfaction survey table oo tusinayo percentage ka dahay strongly agree percentage agree dahay percentage all dhamaantood cid walba qayb kasta oo kamid ah ka qaybgalayaasha sida ay uga falceliyeen su'aalihii 10 ahaa la weydiiyay iyo si toos u tusinaya. halkana waa visual representation macnaha waxa weeyaan muuqaal ahaan ama chart shax oo kaleete yaa lagu sameynayaa qaabkaas ama taqaana jaantus wanaagsan oo muuqaalkaas la lagu sameynayo noocaas lagu sameynayaa. Marka horaan u gelayaa waan bilaabeynaa. Marka waxa weeyaan marka tusaale aan dhahno marka waxaad u dhiibtay dadkii ka qaybgalayaasha su'aalahan aad u dhiibtay marka tababarka bogtay su'aalahan aad u dhiibtay 10 ka su'aal way ka jawaabeen waad ka aruursatay kadib xogtii waxaad ka buuxisay Excel ayaad ka buuxisay database noocan oo kale ku noqday 10 su'aal waa halkaas sare ku qoran yihiin. xaggana waxa weeye falcelintii qof walba uu ka falceliyay halkana waxa ku qoran lambaradii matalaya shakhsi kasta oo ka falceliyay muxuu ahaa ka falceliyay su'aalaha waa marka lagama doonayo report markaad gudbinayso inaad waxyaabahan oo kale ku dhajiso waxa laga doonayaa kuwan inaad ku dhajiso tana laga doonayo inaad gadaal kaga rakibto oo sida qofka muxuu ahaa akhrinaya reportkaaga ama adiga aad ku report garayso madaxdaada uu si wanaagsan wax la fahmi karo oo macquul ah uu muxuu ahaa uga arko kadibna maxay ahayd sacab thank you amal uu ku dhaho. Marka arrintan waxay qosaysaa marka waxyaabahan dadka evaluation ka sameeya ama dabagalada MNE-ga ku shaqale MNE dadka ku shaqale dadka evaluation ka muxuu ahaa dabagalka marmarka qaar dhaco iyagana ku shaqale waa sida consulting firms ka iyo waliba dadka tababarayaasha ama macallimiinta tababarayaasha fududeeyaasha facilitators training facilitators ayuu mataqaanaa quseeyaa cashirkan. Marka qaybtaas halkaas aan ku soo gabagabeynaya waa hordhici koobaad qaybta labaad u diyaar garow insha Allah. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.